aragti wacan daawadayaal ku soo dhawaada Farxiyo Qalif Show aad kala socotaan TV-ga caalamka ee Universal TV ama farxiyoshow.com heesti calanka ayaan ku cushanayna mar labaad loo istaago heesti calanka marka idinkoo raaliya heesti calanka loo istaago Bakina taktarane tagerowe runtii aad baad u mahadsantihiin martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay soo dhaweynta caawa halkan aan isugu imaanay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka gaashaandhiga Xuseen Carab Ciise iyo wasiiru dawlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Maxamed Axmed Kaynaan oo caawa halkan aan ku soo dhaweynayno haddaanu nahay reer Minnesota aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال marka ugu horeysa waxaan idin ka codsanayaa labada wasiir Xuseen Carab Ciise iyo wasiir Maxamed Axmed Kaynaan inay ila soo dhaweysaan war horta sacab ku dhufto soo dhaweey marka labaad si gaar ah baan idinku mahadnaqayaa inaad timaadeen oo soo sharafteen aad galabta halka timaadeen oo aad labada wasiir warbixintooda iyo taladooda ina u timaadeen oo aad ka soo qayb gasheen waxaan idinku mahadcelinayaa si gaar ah dadka halka fadhiya wajiyadooda inta badan waa garanayaa in badanna magacyadoodan garanayaa marka waxaan u sheegayaa labada wasiir inkastoo 80,000 ay degan tahay Soomaaliya magaaladan ay degan tahay haddana dadka kanu halkan galabta fadhiya waa dad matali kara 80,000 intii ugu muhiimsanayd oo shirka ka soo qayb gashana waa inta galabta halka fadhida walaalayaal
si degdega oo maxaan ku yiraahdaa iska galab ah baan ku diyaarinay town hall meeting kan ama shirkan kooban labada wasiir midna shalay buu wuxuu ka soo degay airportka midna wuxuu ka soo degay maanta marka ugu horeysa wasiirka prime minister ku-xigeenka oo wasiirka gaashaandhigga mudane Xuseen Carab Ciise waxaan aan ognahay in uu aabihiis xanuunsan yahay oo isbitaalka yaallo oo si emergency uu ku soo gaaray halkan marka waxaan ka codsanayaa dadkiina halka fadhiya maanta inaad faatixada u martaan ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo Carab Ciise waa mahadsantiin midda kale waxaan si gaar ah u soo dhaweynaynaa oo inkastoo wasiir Xuseen uu nala yahay Mareykan oo uu yahay nin Mareykan ah haddana wasiiru dawlaha Kaynaan waxa uu nala yahay reer Minnesota marka isaga si gaar ah baan u soo dhaweynaynaa waxa waajib ah dadka banaanka ku nool inay ka qayb qaataan xaaladda Soomaaliya ka taagan haddii aad si dadban uga qayb qaadataan waa la ogyahay inaad si dadban ayaan oranin haddii laakiin waa ogtihiin inaad si dadban si toos ah uga qayb qaadataanoo lacag baad dirtaan 24 saac oo eheladiinii iyo waalidkiin iyo walaalihiin iyo lacag baa u dirtaan 24 saac telefoonnaa ku hadashaan oo dadkii baa dhiiri gelinaysaan inta halka fadhida waxaan ogahay kuwa aan wadnaha lahayn oo qalbiga lahayn oo caruurtii dilay shalay maaha doraad laaya caruurtii iskuulka dhiganaysay oo scholarshipka u socotay inaynaan sympathy u ahayn midkiina ka mid ahayn waxaan idin sheegayaa for the first time laba jeer 2 times ayaa anoo nin weyn oo oday ah indhahayga ilma ka timid mar waxay ahayd markii ay ku qarxiyeen bombada dhaqaatiirtii ka soo baxday jaamacadda Muqdisho nin high school ka baxay oo bachelor dhameeyay oo masters dhameeyay oo takhasus qaatay dhaqatirnimo ah oo Soomaali iyo xataa human kaba inuu daaweeyo loo tababaray oo markaas shahaadadii la siinayo maanta qofka inta dhex istaagay qarxiyay hadda muslimna ma aha gaalana ma aha humanna ma aha wuxuu yahayna ma jirto waxa weeye bahalka dadka cuna oo libaaxa iyo yani dadka laayo oo kale qofka arka saas oo kale weeye tana ku xigtay 70 qof oo masaakiina oo arday imtixaan qaadanayso iyo arday maxaan ku yiraahdaa imtixaankii loo soo dhajiyay oo scholarship-koodii daawanaysa inta gaari miina ka buuxda la hortagay ku laayay oo dhammaantood halkaas ay 70 qof ku geeriyootay ilaahay baa idinku dhaarshay yaa oo adkaysan kara waxaas oo kale yaa waxaas oo kale yaa ma diin gaalo iyo diin islaam iyo diin ogol waxaas oo kale ma jirto sidaa darteed labada wasiir waxaanu sheegaynaa haddaanu nahay reer Minnesota haddaanu nahay reer North America haddaanu nahay dadka qurbada ku nool afcaasha noocaasa waxaan diyaar u nahay inaan la dagaalano oo lacag kula dagaalano oo maskax kula dagaalano oo jir ahaan ula dagaalano arrinta Soomaaliya waxay joogtaa kala guur wasiirada inoo ka warrami doona waad ogtihiin yani Kampala Accord iyo road mapki iyo wixii la sameeyay waxaanu wasiirada ka codsanaynaa number 1 inay nooga waramaan xaaladda hadda meeshay marayso number 2 inay nooga waramaan waxa ay ka rabaan dadka annagoo kala ah oo diaspora degan oo Soomaalida oo niyad sami u haya dalkii Soomaaliyeed inay wax ka qabtaan inaad taasna noo cadeysaan oo tiraan waxaas iyo waxaas iyo waxaas ay ka rabnaa inaad wax ka qabataan wasiirkeygii gaashaandhigga oo
prime ministerka aan ku-xigeenkiisa iyo wasiirka ganacsiga oo maanta halkan inagu soo booqday ku soo dhawaada Minnesota waliba magaalada Minneapolis raggiinan Soomaaliyeed ee halkan isugu yimid iyo gabdhaha Soomaaliyeed labadiinaba waxaan qirayaa anugu in aad tihiin dad wadaniyiina oo Soomaaliya oo xalaala oo wadankooda jecel waxayna ka muuqataa mar walba wufuudda idin timaada wasiirada idin yimaada wakiilada idin yimaada iyo ciddii kale mas'uul wadanka sida aad u jeceshihiin sida aad u soo dhaweysaan iyo oo kal iyo laable yani runtii aad baan u qadariyaa marka taas waxay muujinaysaa dad wadankooda ku xiran oo Soomaaliyeed oo maaragtay wanaaga wadanka jecelnaatiin marka waxaan leeyahay reer Minneapolis guuleysta niyadiina wanaagsan oo aad haysaanna Ilaahay ha idin qaado dhawaana Allah na tusiyo wadankeena oo nabad ah oo markaas aad ku noqotaan idinkii caruurtiinaba wasiirka gaashaandhiga waxaan leeyahay wasiirow dhaxda dhuuqsada wasiirow kabaha gashada urda nooma taalo hooyaad nooma yaalo dhibaata wadankayaga haysata waa inaad u halgantaan wadankiina oo wasiirow aad dhul iyo cirba u martay daafacaada dalka iyo wax allaala wixii ciidamada kala daadsan oo maalin walbaba ka go'ahay raashinku oo maalin walbaba uu ka go'ahay mushaarku oo maalin walbaba furinta lagu ceyrsanayo nin haysta intuu rabay mana qararo mana baxayo mana goobtiisana kama dhaqaaqo. And I didn't have too many expectations about the security of Somalia, but it exceeded beyond my imaginations waxa security of Somalia wixii ka jiray. And once again I thank those that were before Hussein but also Hussein. aniga hal qof oo qori ama biskoolad wato oo aan ka ahayn askarta Soomaalida ma arkin. To be honest with you, 10 bari aan xamar joogana hal xabad ma maqal. Marka that alone needs to be celebrated, guys. Midda kale toona anaga dadka aan maalinkaas ka cabanayno they don't even make 1% of dadkeena Soomaalida. And those should not disappoint us. Besides, I think waxaan sameyn karnaa anaga ahaan haddaan mid kasta qof kasta oo maanta meeshan joogay inteena wadamada ka soo maqan iyo kuwa joogaba the best security is not defense minister, it's not police, it's shicibka. Marka, and that is where we lack in haddaan Soomaali nahay. We need to have better hope for our countries. We need to have a better security system. And the security system waxa way qof kasta wuxuu arko hadduu sheego waxa way meel waa gaari lahayn. But dadkaan isqarxinayo kale qof kasta gurigu ka soo baxa hooyo ka soo akaca wuxuu ka soo akaca haween uu qabo marka weena dadkoodana goodbye way soo dhahan but qofkaas haweena ama aabaha ama cunugu dhalay hadduu dhaho aaba you can't do this that is what we missing marka anoo rabo inaan marka hore taas idinka ahaan aan niila share gareeyo and aniga midaas that was one thing that gave me hope marka waxaan idinka codsanayaa in aad wasiirada haddii aad su'aalo weydiinaysaan anay ku ekaan oo kaliya qaraxyadii hadda dhacay iyo kuwii hore dhacay inaynu weydiino mustaqbalka maxaad u haysaan qarankan baaba'ay qorshihiinu muxuu yahay wadanka lagu horumarinayo iyo waxyaabo noocaas oo kala waxaan doonayaa in ay su'aalo ahaadaan kuwa soo kooban su'aalo inaguna beritoole aynu u ay doono waxa ay maaragtay natiijadooda noqdaan sida ay maaragtay xukuumadda ugu tala gashay in ay u shaqeyso marka ugu horeyntii waxaan leenahay wasiirada wasiir ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha ahna isla markaana wasiirka difaaca His Excellency Hussein Arab Ciise iyo wasiir dawlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha His Excellency Mohamed Ahmed Kaynaan labadiinaba waxaynu gacmo furan idinku soo dhaweynaynaa
inkastoo reer Maraykan aad nala tihiin gidigeen ku soo dhawaada Minnesota. بسم الله الرحمن الرحيم. وحارنتي مهد أنو علينا يا جالي الله سبحانه وتعالى مركل بعد جالية من مينيسوتا قران قبل كان مينيابوليس قبل كان مينيسوتا مقالة مينيابوليس وأنا كتر سنة هاي أنت أنا قد بدي إذا بلابين وحينده قبنا يان دد كيسيالة أو يجوا يمد مقالة حمر أو رنتي هذا أنا قفر حيقول دير صدق مركي يجوا يمدين أنت إنده قبتان كبلابة لنا عميدك تا ولا شيء سعدية فلذا أو رنتي قف كيسيا حتى مركي تيمت هوتيل ما يسن سياحان waxay deganeed guri bay deganeed xaafad bay deganeed hatta hotel ma aysan deganeen marka saacadiyo wax badan bay qabatay waxa halka fadhida Aamina oo ma taqaan waqti dheer iyo waqti badan nala qaadatay aad baan maaragtay soo dhaweynaya halkan indhayga waxa ka qabtay nimco halkan timid iyo ubax baan u maleynayaa halkaas dambaan ku arkayay waxa kale magaalada noogu yimid waqti badan ila joogay Cabdisamad Nuur Bidaar oo qofkii ugu dambeeyay hadda ka soo tagay waxa kale Minnesota waxa mudawaayadan dambe sidii hore waa laga geesisan yahay aad baa loo yimaadaa waxa halkan hadda ka maqan Cabdullaahi Cilmi Mooge Ali Yuusuf gabar ubax la yiraahdo hadda aan uga soo tagay magaalada Muqdisho dhammaan inta timid iyo inta rabta inay soo aado waan u mahad celinayaa warbixintana iyaga ka qaadan kartaan anigu waxa laga yaabaa inaad tiraadaan jagaad ku haysataa jagadaada cishanaysa laakiin iyagu jaga kuma haystaan wayna yimaadeen Cabdisamad xaafad kamid Muqdisho uu san tagin male sawirada uu ka soo qaadan uu idin siin doonaa every xaafad kasta oo Muqdisho isagoo badda liida ku dabaalanaya ayuu idin hayaa marka intaas waxa weeyaan dhiirigelin aan rabaa inaan idinku dhiirigelina wadanka timaadaan waxaan rabaa inaan warbixino gooban aan bixiyo maadaama uu joogo ra'iisul wasaare ku xigeenkii أنا وزير كعشان ديك هذا البدن إما فرنا هذا الكي أنتي سبدن بروتوكول عن رئيس الوزراء قاله لكن وحبان يدي فينا يا صدق قضب عن رأينا كهذا قضب كوجو الرئيو حياي مجال دي مقدشة والنبات مجال دي مقدشة ومجال قروح بدن والنبات نقطي وإيربور كده وشقينا يو تكد دي وشقينا يو مجال ده حفيسة دي أردنا إفرايهم وحتصالكوا إيربور كمقدشة مركا كدكتو waxaa jira system ka Mareykanka aad ku aragteen oo kale fingerprints baa laga qaadayaa eye scan baa laga qaadayaa alaabtaada waa la fiirinayaa check up baa jira and all kind of mataqaana airportada caalamiga ay leeyihiin magaaladeena Muqdisho waa leeyahay airportkana aadan cadda airport magaalada air dekada sida aad sawirada ku arki doontaan anaa idin keeni doona insha Allah idin siin doona ama barnaamijyada ku ama TV-yada ka aragteen dekada wixii qashina oo ku jira waa laga sifeeyay waxaana nasiib u yeelanay inay ku soo xirtaan maraakiibta waaweyn oo aad u waaweyn inay ku soo xirtaan hadda markii wadankii dhibaatada iyo abaaraha ay ka dhaceena maraakiibtu waa isdaba joogaan waa iska sugayaan maxaa la yiraahdaa in ay soo xirtaan marka iyadana halkaas waxa ka jirta faa'iido kale oo fiican dekada iyo maaragtay customkiina sidii la arki jiray ee sax ah ayuu u shaqeeyaa anigu waxaan joogaa wasaaradda ganacsiga warshadaha xafiis ayaan ku leenahay dekada alaab kasta iyo markab kasta oo soo daga waxaan ku leenahay control check annaga baarna annaga fiirina waxaan inay magaalada gali karaan in kale wasaaradii maaliyadda joogta turbatariyadii baa joogta shaqadii wasaaradaha ama shaqadii dekadanu sidee tahay bay u socotaa xafiisyada dawladda dhammaan way fakshan garanayaan kulli way shaqeynayaan ilaa iyo madaxtooyada ilaa iyo maxaa la yiraahdaa hadday noqon lahayd duqa magaalada minishiibiyadii maxaa la yiraahdaa nimankii la oran jiray trafficada dhammaan way shaqeynayaan qofkii u haysta Muqdisho meel baabaaday inay tahay ma aha meel baabaaday caadi ayay u socdaan waxaa soo noqday rajadii iyo maxaa la dhahaa iyo qarannimadii Soomaaliya ayaa dadkii dib ugu soo noqday magaaladii wadooyinkii oo dhan ayaa la dayactirayaa dadka gacmahooda ku xaaqayaan dumarka Soomaaliyeed waxaad arkaysaa xaaqimo ay wataan wadada iyaga xaaqaya
gacantooda ayay ku sameynayaan dadkii Soomaaliyeed meelihii jajabnaa oo dhan waa la aasayaa waa la waxeenayaa dhulkii nimanka nabadiidka ee shabaab ay ka baxeen oo ay qodeen oo xaafad walba ay qodeen dariiqyadii ay qodeen maanta xaafadii dadkii Soomaaliyeed ayaa dib u aasaya dib ayay u aasayaan wadooyinkii iyo xaafadiina sidoodii ay ku soo noqonayaan wadankeena waxaa ka dhacday maalmo dhaweed abaar aad u xun abaartaasi waxay sababtay in dad badan oo deegaan ahaa gobolada koonfur galbeed ha u badnaadaan inay dadku iyagoo aan ciiday ma aragtay aan u yeerin dhibaatada dhacda iyo abaarta iyo gaajada darteed inay soo qaxaan oo ay magaaladii Muqdisho subaxyada kamid ah caadi ugu soo waabristaan soo gelitaanka ay soo galeen dadka shacabka ah ee dhibaatada soo gaartay abaaraha ay soo gaartay waxyaabaha ay sababtay waxaa kamid ah inay ummadda Soomaaliyeed isu gargaaraan in la isu kaco dal iyo dibad idinku ah kamidtiin reer Minnesota oo aad u soo gurmateen oo ay nooga yimaadeen walaaladeen Cabdicasiis Maaxay iyo Nimco iyo Ubax iyo iyagoo wada mataqaana lacagtii iyo dhaqaalihii iyo wixii aad iska soo ururiseen iyagoo wada ayay noogu yimaadeen dawladda Soomaaliya waxa ay sameysay xiriyo ayay u sameysay xero la yiraahdo badbaado iyo xero la yiraahdo rajo ayay dadka ku kala xareeyeen lagu kala xareeyay xerada badbaado waa xerada ugu weyn oo dadka maaragtay barakacayaasha ay degan yihiin waxa dawladdu ay sameysay hay'adda maareynta musiibooyinka ama disaster management agency oo aad iyo aad u shaqeysa arrimaha abaaraha iyo arrimaha soo dhanna ma aragtay waxay aad iyo aad ugu howlan wadamadii soo gurmaday wadamo badan baa soo gurmaday waxa ugu muhiimsan dawladda Turkiga oo runtii wax ma aragtay qayru caadi ah oo walaaltinimo kale iyo laaba noo muujisay waxa inoo yimid ra'iisul wasaaraha Turkiga Erdogan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa runtii waxa ka dareemaysaa ninkaas maalintuu noo imaaday inay ka daacatahay ka dhabtahay xaaskiisa iyo caruurtiisa buu keenay ballanqaadyadii uu sameeyay oo dhanna waa ay fuleen ballanqaadyadii uu Erdogan uu sameeyay ra'iisul wasaaraha waa ay wada fuleen dhamaantood wayna socdaan waliba intii uu ballanqaaday in ka badan ayaa socota ninkaas iyo wadankaasiba waxay noqdeen wadan walaal ah oo xilligii loo baahnaa yimid aad iyo aadna noo garab istaagay anigu waxaan kamid ah guddi wasiiraha oo maalin dhaweed soo booqanay xeryaha qaxootiga xeryaha meelo badan bay ku yaalaan waxaa kamid ah xaafadaha ay ku yaalaan sayidka hoostiisa qofka yaqaan oo wadaag ilaa iyo ceel garweyne meelo badan tarabuunka meelihii aan tagay waxaan ugu tagay dad Turki ah oo qaxootiyada dhex degan oo caawinaya waxyaabahan la yaaba naaga gabdho Turki ah oo dadka la jooga ku daaweynaya la seexanaya oo aan waardiye xataa aan haysan dadkaas waxa kaloo kamid ah wadamo badan oo islaam ah noo soo gurmaday Kuwait baa kamid ah ma tirin karo dhammaan imaaraadka kulli waa inoo soo gurmadeen dadka shacabka Soomaaliyeed dib iyaga laftirkooda waa isugu gurmadeen waatan meel walba laga tagay arinta abaaraha dhibaata ee laakiin Soomaaliya haddana waxaan filaynaa inay noqoto midii looga bixi lahaa dhibka oo rajo ayayna gelisay arintaasi arin weyn weeyaan arintii qaraxii daraad dhacay daraad qaraxa markuu dhacay anigu waan fadhiyay waana shaqeynayay talaadadii bay ahayd xafiiskaygaan fadhiyay hargaha iyo saamaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sartaasi waxaa degan 7 wasaaradood iyo xafiiska hanti dhowrka 7 wasaaradood hoos waxaa ka degan wasaaradayda ganacsiga dhinacan kale waxaa iga degan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda tacliinta wasaaradda qorsheynta qaranka wasaaradda caafimaadka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta dhammaan saasi u degan waa 3 dabaq building waa 3 floor building weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ma aragtay runtii nimanka dhibka ay wadeen nimanka nabadiidka ah ee shayaadiinta ah ee diin islaam iyo diin kala midna aan haysan naxariis aysan ku jirin waxyaabaha ay soo maleegeen ruuxii taagnaa ee arkay un baa ka sheekeen kara haddaan damcayna idinkaga sheekeeyo ma qiyaasi karo waxa miinada iyo bamka iyo waxa ay soo xireen waxa ka darnaa waxa kale ay ku soo shubeen oo dadka marka ay gubay ama aashitaat ama wax kala aado baabuurkii marka ay ku soo galeen si kasta u soo galaan baabuur weyn oo UD ah
qaraxii ilaahay waa uu ka badbaadiyay sartii ay la rabeen si toos uma gelin dhinacyada ayuu u baxay laakiin wuxuu aad iyo aad u baabi'iyay caruur Soomaaliyeed oo imtixaankii qaybtiisii hore ku guuleysatay intoodii baastay ee u timid inay biri ama saadamba loo kaxay Turkiga waa intii baastay ma intii dhacday markii hore imtixaanka la gelayay ma qarxin mana aysan doonaan intii xulka ahayd ee la isu keenay in natiijada fiirsanaysay ee biri ama saadambana la kaxan lahaa diyaaradooda u taagneed weeyaan intay qarxiyeen iyo waalidiintii dhashay iyo maxaa la yiraahdaa ciidankii waardiyaha albaabka taagnaa iyo basaskii ka shaqeynay magaalada dariiqa waad aragteen wadadu waa wada busy ah mashquul ah baabuurta ka timaada xagga iyo Madiina ama ceelasha ama u socota ceelgaabta waa wadada ugu mashquulka badan dadka lugeynaya ka badan halkaas ayay ku qabsatay qaraxa markuu qaraxa dhacay anu nasiib wanaag fadhigii kursigii shirki aan la lahaa wasaaradda shaqaalayga waan dhameeyay waan ka soo yara kacay mana aan gaarin albaabkii aan rabay inaan ka baxo qof kamida dadkii aan qaabilayay ayaa ila istaago waxaan istaagay hallwayga dhaxan istaagay aan ku qaabilayay markaas uu qaraxa dhacay hallwayga aan taagan marka qolkii aan ka soo kacayna waa burburay baabuurkii aan rabay inaan raacay meesha u socdana waa burburay magaaladiina si kale u ekaatay marka waxaan ugu imid meesha dhaawac fara badan iyo dad gubtay iyo baabuur ololaysa aduu markiiba waan ka tagay hotelkii aan deganaa u dhawaa baan tagay isna sidoo kale u burbursanaa waan soo dharbadashay waan soo noqday gooyaal iyo waxay hotelkii yaalay baan soo qaaday markaas ayaan bilawnay inaan meedkii iyo dhaawacii meesha aan ka gurno aniga iyo wasiir dawlaha gaashaandhigga wasiirka ninka ku xiga oo runtii wasiirkii ugu horeeyay meesha yimid ahaa kadibna waxaa noo yimid wasiirro kale iyo dawladda iyo ambulance iyo amisom iyo adu calaay taxal intii aan badbaadin karnay oo dhakhtar la geen karo waan u geynay laakiin wax ku daatay dadka baa jiray oo qofka aadan garanayn waxa uu yahay gubay marka aashid waxa marka dad cadow ah oo cadownimadooda in la qariyo aysan ahayn weeyaan dadka Soomaalida nala sheeganaya meel walba inuu joognana nimankaasi dagaal bay noo cadeysteen dagaal aan u cadeysano waxaan ku soo gabagabeynayaa walaashay canab waxay ka hadashay arrinta badda way soo noqnoqotay sidaad la socotaan maalintii ugu dambeysay maalmihii ugu dambeeyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa aad u fadhiyay si aad u qoto dheer ayaa loo falanqeeyay waana laga hadlay meelna waa lagu xiray marka taas waxaan u maleynayaa halkaas ayay ma aragtay insha Allah taala ku filnaan doonto mar hadduu baarlamaankii go'aamiyay baarlamaanka go'aankiisaan u daynaynaa Minnesota waxay ka mid tahay meesha koow laga taageeray badda waxaana ku amaanaynaa dadkii soo abaabulay sida Somali Talk iyo ma aragtay ashqaasta kale ee reer Minnesota ee markii ugu horeysay ka soo hadlay ugu dambeyn Soomaaliya way idin baahan tahay Minnesota si gaar ah idinku baahan tahay dadka jooga Soomaaliya ana reer Minnesota aniga hal i weydiiyay magacaan laga haysto aniga marka la arkaa leeyahay Minnesota magaaladaadii iyo dadkaaga waxa loo haystaa meesha ugu tirada badan dadku inuu yahay meesha ugu tayada badan inaad tiin meesha ma taqaana dalka Soomaaliya haddaad u soo jeesataan wax ka qaban kartaan inaad tiin marka rajadan laga qabo iyo awoodda aad leedihiin iyo kartidiina waxaan idinku talin lahaa dadaalkii aad sameyn jirteen inaad laba laabtaan in aad laba jibaartaan in aad ka qaadataan mashaariic la taaban karo oo la garanayo in aad ka qayb qaadataan haddaad reer Minnesota tin oo loo bixiyo Minnesota haddaad magaaleyn lahaydeen Minnesota iyo Muqdisho haddii la magaaleyn la ama la mataaneyn la walaaleyn lahaa waa arrin aad kula talnaa inaad sameysaan hadday Muqdisho idinku weyntaayna wasaarad u qaato maanta aniga iyo gaashaandhigga idila joognay wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradii gaashaandhigga noo dhisa haddaad reer Minnesota tin inta السلام عليكم waxaan ku bilaabayaa arinta uu sheegay wasaaradda dib noogu dhisa runtii waa in aragtan ba fiicnaan lahayd meesha xafiiskaygu yahay
muraayadaha waxa wada jabsan yihiin xabad baa ka buuxda bullet holes derbiyadu waa burbursan yihiin marka horta meeshaas way meeshaan ka shaqaynaa waa in ogaataan laakiin waxaan ku bilaabayaa marka hore sharaf weyn bay ii tahay inaan caawa isu nimaadno runtii namarti qaadaan oo la isugu yimaada halkan oo la iswaraysto aad baan ugu mahadcelinayaa dadka qabanqaabiyey runtii isaragan caawa town hall meetingka iga raali noqda waan yara daalanahay xoogaa 4 subaxnimo ka soo baxay California laakiin marka la igu yiri in lagu arkaa la rabaa oo la iswaraysto khasab bay u noqotay inaan imaado waanan ku mahadsantihiin inaa ii yeedhaan waanan ogolahay in la xisaabtamo runtii ardaydeena iyo dadkeennaba inaan runtii eheladii ay ka dhinteen dadkaas aan tacsiyeyno dadkii ku dhaawacmayna ilaahay uga barano inay caafimaadkooda si degdeg ugu soo noqdo laakiin waxaa ogaataan waa markii labaad ee sidan laynagu sameeyo ee weliba xaggii tacliinta si direct ah laynooga ataagereeyo dhalinyaradii soo kacaysay waxay noo baranaysay mustaqbalkii Soomaaliya laynaga ataagereeyo marka su'aashu waxay tahay in badan baan cabanay waqti halkan laga hadlay la yiri ma garanaysaa islaamaan ka dhageysay raadiyoga maandhood kale TV-ga ama waxa la naga celiyo ama aan isdhibno waxa weeye marka runtii xagga dawladda shacabka naftirkiisa ama idinka mas'uuliyad weyn baa idin saaran waxa weeye shacabku haddaanu iska celinin oo aanu garab istaagin dawladda oo ninka ku dhex jira aanu sheegin wax qabsoomay mare Minnesota idin la joogaan waa ogtihiin waa laga wada wareegayaa waa idinku inaad bilaawdaan dagaalka keedin ku dhex halkan idin la joogaan systemka ay caayaan ee gaalada ayay ku nool yihiin reerooda ku korsadaan haddana waxba ka sheegayaan yani laba wajiilnamaynta ka wana adduunyada ma aragaan marka waxa weeye runtii nin kastaaba shaqo gooniya nin iyo naag waxba ka saaran shaqo gooniya inay iyagu ka shaqeeyaan nimankan meesha joogaan inay sheegaan mas'uuliyad baa ka saaran talabaad waxa weeye iyagu mowqifkoodii way cadeysteen annagu muxuu yahay Soomaali ahaan meel kasta la joogo mowqifkan muxuu yahay iyagu way cadeysteen ajandahooda annaka ajandadu muxuu yahay ma isku xidhannahay isku ajanda ma nahay mise waxa weeyaan Minnesota la joogo how united are you waxa weeye wali waxaan maray in leedinku oran laakiin waan arkay runtii Minnesota waxa tihiin dadka Soomaaliyeed oo sheegato including myself anoo inkastoo yara fogeysano tirada wareer California waxa weeye halkan waan arkay shopping centeradiina idinku in ay yeelataan way shopping centeradiina businessyadiina oo kala ijaarataan marka waa sida gaalada tiraado charity starts at home nin kastaaba waa inuu meesha joogo iyo gurigiisa iyo magaaladu degan yahay uu ka bilaabaa abaabulka markaas aan anaguna Soomaaliya noqonaynaa because what taqaanaan Mareykan maanta Irishka Italianska dadka degan oo dhan dalkooda iyaga u hadla meeshii adduunyada laga maamulayo halkan annaka yaa noo hadla way marka question halkan ay isugu soo biyo shubatay maanta Mareykan ba adduunyada rangareeyay waa la ogyahay taa marka dadka Soomaaliya jooga waxay leeyihiin reer America maxaa ku dhacay especially Minnesota iyo Columbus Ohio marka xagga mas'uuliyad weyn baa idin ka saaran khaladaad way dhacayaan xaggayga xagga security-ga of course gaashaandhig wasiirka gaashaandhiga waan ahay laakiin 100% security ilaahay baa keena Mareykan bay ka dhacdaa Europe bay ka dhacdaa Carabta ka dhacdaa laakiin waxa weeye security ugu weyn sidii nimco sheegtaalka soo istaagtay waxa weeyaan guriga ka bilaabmaysa caruurtiina waa inaan leedinka maskaxdooda leedin kala wareegin ilmahaaga guriga kula jooga wuxuu qabanayo wuxuu sameeyo iskuul ku tago ciduu la hadlo waxa weeyna ogaataan you have to be involved maanta waxa weeye meesha la inaga soo dhacay waa halka gurigii baa la inaga soo dhaxgalay waa maskaxdii baa caruurtii lagala wareegay dadkii marka waxa weeyaan qurba jooga mas'uuliyad weyn baa saaran dalkii marka anu markii la igu yiri shaqada la ii sheegay of course few seconds bay ugu qaadatay laana waxa weeyaan you're either part of the problem or the solution waxaan markaan solution ka qayb galaya at least waan tagayaa
intaan ka geysan karaan ka geysanaya idinka kulligiina saas la idin karaba idinkoon annaka wax naga sugin reer Minnesota imika dad baa ka yimi runtii shaqo fiican bay soo qabteen way soo arkeen waana ku mahadsan yihiin waana idin wada filayna kulligiina inaad soo noqotaan xagga nimanka halkan degan militariga iyo police-ka iyo dadka experience-ka oo dawladaba aad baa idinku baahan yahay inaad timaadaan ama shaqaha leedin hayna marka hore laakiin waa inaan la yimaadaan meesha cidina idinkama hortaagna expertise-kana waa loo baahan yahay waana ogtihiin dalka waxa ka taagan marka xagga horumarka runtii intaan u noqono maxaa qabsoomay intaan maanta dhawaad qaraxii foosha ma dhicin waa ogtihiin al-shabaab watii muqdisho laga saaray taa in itself waxay keentay challenge cusub لأنه أنت اللي هي أفرلاق بمركلية دولة كوسوفا كتير runtii waa la isu tagay iyadoo United la yahay sidoo wasiirku way idin sheegay waa waxa la keenay markaas strategy annaki amisom xagga militariga xagga police-ka nabad sugidda maxkamadii waxa la sameeyay meesha la qabtaba in la tago oo nabad la sugo oo lagu hubsado inaan dadka wax la yeelin alaabtooda la biliqaysan police-ka la keeno maxkamadii la keeno oo xataa xafada qaarkood lagu degdegin oo taas laga soo yara gaadhay xogaa in yaro daliil ah laakiin annaku waxyaabo aan ogeyn baa jira aan ogeyn annaku oo dadka ogeyn baa jirtay oo la sugi kari waayay taasuna waxay ahayd nimankan xaafadaha waxay kaga tageen miinooyin bay ku sii aaseen guriyuhu dabareeg way ku sugayeen dadka iyagoo dhar xidhan plain clothes oo shicibka iska dhigaya marka waxay noqotay in program loo sameeyay si looga saari lahaa alaabtaas iska oo lagu celin public ka mas'uuliyad baan xagga dawladda naga saarnay taas runtii markii dambena xagga gurmadka Turkiga waxyaabihii ay sameeyeen prime ministerkii Turki waxay ahayd wax cajiib ah oo taariikhda Soomaaliya gashay wuxuu furay albaab xagga caawimada runtii albaab buu furay nod isaga kaliya mooymanina waxa yimi xaaskiisii caruurtiisii bukaa taasi waxay dadka tusaysay in horta waxa kugu dhacay Ilaahay baa gacanta ku haya markuu yimi saasoo kale uu sameeyay wuxuu yiri aniga Soomaali security-ga ilaalinaysa cid kale ilaalinaysa ugu diiday gaariga qofna inuu galo wuxuu yiri dadkan dhex maraya oo taabanaya oo salaamaya markuu arkay dhibaatada ka taagnayd meeshan uu wastay inuu completely Soomaali dib u dhiso marka isagu waa laakiin inuu yimi oo dalka la ka yimi oo muslimiin oo kacay runtii inaan u mahad celino waa waajib aan nagu tahay laakiin inaga kulligeena collectively saasoo kale inaan sameeyno ayaa loo baahan yahay laakiin tii uu sameeyay waxay keentay in dalal badan ay noo yimaadaan oo ay gasho runtii alxamdulillah soo Muqdisho oo markaa waxay si wasiirku sheegayba oo runtii dadku soo baxeen maalmihii ugu horeysay la qabtay Muqdisho waxa dhacday dadku inaan aaminsanayn xorriyadda ay heleen laakiin markii adigu dhowr way ka soo wareegtay dadkii inoo yimaadeen macaawanadii bilaabantay maartay businessadii baa dib loo hagaajistay guriyada baa la hagaajistay waa maartay waxa soo noqotay in nabad lahayn karo annaka naftarkaygu waxaan u goosanay in haddii sidan ku socoto waxa soo baxay light at the end of the tunnel in yaro maartay leyn mustaqbalkii ah dabadeed iyadoo sidii ku socota waatii dib u heshiishinta shirki baa dhacay shir naftarkiisu isagana taariikh meel Soomaaliya meel weyn ka galaya taariikhi bay ahayd leena waxay ahayd markii ugu horeysay ay Soomaaliya inta la isugu yimaado lagu heshiiyo waliba yani shir ay Soomaaliya maamulayso oo ay go'aankeeda iyadoo leedahay waxa ka soo baxa oo runtii idinku waxa aragteen wixii ka soo baxay results-ka laakiin saddex cisho oo waxay ahayd yani 24 hours la maartay la isku noqnoqonayay oo qodobyada qaarkood la iskaga hor yimi haddana la goostay in Soomaalinimada laga raaco oo dad badan imaan tanaasul markii ugu horeysay la kala dambeynay timaado marka taas naftirkeedu waxay mudan tahay in la sheego horumarka halkaas laga gaaray xagga abaaraha waa ogtihiin runtii waxa ka dhacay Soomaaliya oo dhan wax runtii iyada naftirkeedu cajiib ah waxaan u qabaa inay tahay runtii in many ways innaka naftirkeenu dambi baan ku leenahay leena waxa weeye nin
dhulka noocaas haysta badda inta leeg haysta dad isku afa isku diin isku dada ya inuu maanta gaajo u dhinto ya naftirkiina war maraad isku egna weeyaan loo baahan laakiin way dhacday abaartii waxay noqotay dadkii loo gurmado alxamdulillah adduunyada way noo soo gurmatay annagu dawlad ahaan intii taagteeda waanu qabanay waxyaabaha aan goosanay xataa maarta lala yaabo waxay ahayd in markii la keenay caawimaadii in areadii ay deganaayeen xataa ay al-shabaab ku joogeen aanu u ogolaano in la geeyo ay iyagu ka hor istaageen taas marka waxay intusaysaa haddii xaggii tacliinta lanaga abaaray oo ay cuntadii dadkii dhimanayay u diidayaan yani waxaan u malaynayaa wax kaloo aad u baahantihiin inaad ogaataan ma jirto mowqifkooda waxaan u malaynayaa markii hore aan kusoo noqdo arrintii ahayd gaashaandhigga iyo militariga iyo inamada runtii geesinimada muujiyay ayagoo ama sida la yidhi aan cunto helayn mushaahar helayn frontka ku jira waa run iyagaa ka horeeya qolooyinka kale ee runtii walaalaheena inoo yimi iyaga nafsirkooda maaragtay kaga dhinteen dad badan dagaalka iyagoo ina garab taagan dad badan baa iyagu goostay yidhi waan soo diraynaa askar laakiin laba Uganda iyo Burundi mooy cid kale ma imanin inama iyo gabdho badan baa kaga dhintay kana turkooda Soomaaliya si inaka inoo caawiyaan laakiin intaanan u gudbin xagga maaragtay waxa loo siin waayay mushaaharo cunto heli waayeen waxa weeye sidee bay ku yimaadeen way question in la isweydiiyo waxay ku yimaadeen Soomaali barxalada badan bay soo martay oo dhowr waji leh mar waxaanu ahayn reermi mar waxaanu noqon isticmaar bayna qabsaday waana is xoreynay waxa barba waji gooniya lahayd ama muskumaasaq noqoto ama military ha noqoto ama warlords ha noqoto ama niman diin sheeganaya ha noqoto dhowr waji bay soo martay intaas oo dhan Soomaali ayaa involved ku ahayd marka maanta arrinta taagan innaka halkaas soo dhignay marka weeyaan waa in la eega haddii adigu aad ismaamuli weydo adigu isbaabi'iso dulli iska dhigto waxa weey waa lagu imanaya waa lagu talinayaa waxaan idin oran lahaa dalkii maanta dadkiina Mareykan joogan baa u maqan saan markii hore idin ku yiri halkan ayaabay maskaxdii iyo xooggii iyo wax kasta bay isugu yimaadeen marka mas'uuliyad weyn ayaa idinka saaran inaad Mareykan dalkan aad joogtaan ka mid ka tihiin inaad la xisaabtantaan xagga maxay la damacsan yihiin Soomaaliya maxay u qabanayaan inaad idinku la xisaabtantaan weeye oo annagu aan idinka isku keen halayno dabadeedna idinku aan caawsaan markaas ma annagu dad noqonaynaa intii tamarteeda annagu waa qabanay tagitaanka aan tagayno kaliya ayaaba aan ahayn wax fudud marka waxaan ku kala tagaynaa ogaada maanta idinku baa u maqan dalkii shaqo weyn waa la idinka sugayaa runtii waxaan u maleynayaa teeda kale waxaba la gaaray imika waqtigii runtii dumarku ay aad uga soo qayb gali lahaayeen politicska Soomaaliya waad ogtihiinoo dadkii Soomaaliya jooga ninkii inaan u maqnayn ba maanta ugu nolol wanaagsan taas ana indhahay ku soo arkay marka ragana waxayna saareen innaka naftirkeena shaqo weyn qabataan baa la idinka rabaa ha loo ogolaado politicska ha soo galaan ha la garab istaago waxna ha la qabto runtii shaqada inteeda weyn imika iyaga baa wada credit baan la siin marka waxaan oran lahaa u ogolaada inay soo galaan politicska oo haydin garab istaagaan haddii la yiraahdo 50 to 60% ya maskaxdii ummadda Soomaaliyeed in la xisaabinin meel ma gaarino marka aanu intaasaan ku soo gabagabeynaya in runtii aad wax nala qabataan annaguna intii taagteeda waa qabanaynaa runtii dagaalka aan ku jirnana waa dagaal aad iyo aad maanta khatar gelinaya jiritaankii xataa Soomaaliya hadday imika waqtiga aynu taagannahay ayna nimanka inagu jabin waxa hubaal ah in la oran doono Soomaaliya way jiri jirtay marka maanta meesha la taagay oo meeshii ugu darnayd weeye in la isu tago qabyaalada la iska iloobo la isgarab istaago oo dabadeedna nimanka la tuso midnimo sida kaliya laga adkaanay waa sida
وانا مع تنتين waxaan opportunity u yeeshay inaan mar kale aan la fariisto aan wareysto oo haddana booqasho noogu jooga magaalada Minneapolis wasiirka gaashaandhiga Mr. Hussein Arab Ciise ku soo dhawaad farxi qalib show Universal TV aad iyo aad baa mahadsantihiin fursadan wanaagsan ciidka ay siiseen reer Minnesota iyo saxaafadda reer Minnesota iyo barnaamijkaaga Universal TV runtii waa fursad aad u wanaagsan inaan kula hadlo reer Minnesota iyo Soomaaliya meel kasta ay joogaan kolleysaan caawadan u jeeday wax badan waa lagu weydiiyay safarna waad ku timid maanta soo gashay waana daalanta marka su'aalaha waan soo koobi doonaa sidaan jeclahay because wax badan waa lagu weydiiyay waxaan rabaa inaan ka hadlo dhinaca women issues Soomaaliya waxyaabo badan ka dhacay dhibaato badan ka dhacday sida hadda oo qarxiskan ka dhacay wasiirka gaashaandhiga ma ku fikirteen wax walba gurigu ka bilowda hooyaday ka bilowday ilaa hooyada wiilka ayada dhashay husband ninkeedii waa wiilkeedii marka ma ku tali jirtaan dhinaca oo women inaad xoojisaan oo politics wise inaad wadankii ama advisor ay ka dhigtaan ama ay ka galaan meel oo heer sare ah sidaan hadda ogahay ama aan maqlay way aad ugu yaryihiin waa su'aal aad wanaagsan runtii anigu san markii hore ku sheegay markaan hadlayay 50 to 60% maskaxda Soomaalida in la yiraahdo ha ka soo qayb galina waxaan arkaa annagu wax noo dhimaysaa waxba nama tarayso in dumarka la empower gareeyo taladooda la weydiiyo runtii xagga la dagaalanka argagixisada ama nimanka la dagaalamayana wax weyn bay ka qaban lahayd hadii iyaka laga qayb galiyo women ay involvement ku noqdaan taliska oo xataa ibanka ra'yigooda ka dhiibtaan leena waxa way saas sheegtay nimankan mushkiladaha wada guriga ka soo baxayaan hooyooyinkeed baa soo korinaya nimanka waxa way waa xaaskoodii waa walaalahood waa hooyooyinkood marka iyaka hadaan u kaashano waxaan ma qabaan waxba naga waxmaanayaan marka runtii dawladdan imika joogta runtii aad bay u saacidaysaa waa runta way ku yar yihiin taas wax mid cidna ka qarsoon ma aha laakiin wax kastaba waxay qataan marxaladba marba la soo galaa laakiin waxaan ahay dadka aaminsan in dumarka lala tashado laga soo qayb galay talada dalka waa Soomaali sideenoo kale marka in qaybtooda laga siiyo waa wax loo baahan yahay kolay aansan ogahay women wax loo baahan yahay waa ma aha noqdo qof advisor idin noqda ama aad position fiican siisa inaad ku tala jirtaan kolay soo socodka marka hadda kolay wadankii waa tagtay laba bil haloona joogtaa laba bil wax yar little over 2 months marka little bit experience ka la kulantay isaad u filanaysay siday noqotay wax yar dhinacaasna ma ka taaban kartaa wallahi horta aad baan ula socday intaan tegin Soomaaliya laakiin marka aad tagto waxaad arkayso waxaad hore uga fikiraysaa malaha waxa weeyaan yani burbur weyn baa ku dhacay dalkii wax aan maskaxdaada gali karin oo marka ugu horeysa tagto waxa ugu horeeyay ka yaabsanaya waa taas laakiin taa waxa ka sii weyn burburka ku dhacay dadka degan Soomaaliya jooga xagga xagga maskaxda xagga waxa weey 20 sano oo la terrorize gareynay dhimasho dhac lagu sameeyay marka xaggan dhulka dib loo soo dhisidiisa guriyaha waxa wala sameyn karaa waqtina qaadan mayso laakiin dadka sidii loo soo celin lahaa ma garanaysa wixii ku dhacay looga soo wax looga qaban lahaa taas way imka challenge ka noogu weyn marka aanu runtii waxyaabahan arkay waxa kamid ahaa in opportunity ay jirto fursad in loo soo celin karo Soomaaliya la soo celin karo leena maanta waxa way shicibkii ka daaleen waxay ku noolaayeen ama al-shabaab ha ku samayso ama maxay ahayd dawladda waxba qaban kari waayay soo maraan shicibkii maanta waxay diyaar u yihiin cidii wax la qabanaysa marka diasporan runtii way u riyaaqeen dadka qurbaha joogana diasporan waxay ka doonayaan shaqo inay soo noqdaan wax la qabtaan okay before I let you go a couple more questions wadanka hadda wali dhibaato ka socdo 21 sano kadib qarxadii oo hadda dhibaatada ka dhacday laba bari ka hor caruurtii masaakiinta ahayd oo soo baxay oo scholarship ku soo baxeen marka dadka badan aan waxay leeyihiin it's not really al-shabaab waxa recruit ku soo binaa wadanka dadaanan Soomaali ahayn al-Qaeda mentality wadanka joogo oo recruit ku soo binaayo oo master plan ka soo bin marka adiga as wasiirka gaashaandhiga muxuu yahay master plan ka aawdid ama aad ku socotid oo kaga duwanta ama aad ku sameyn doontid hadda waxa dhacay waa taa hadda wax yar ka horna aad tiri al-shabaab way soo laabteen challenge-koodana waa aragtay Amazon ee dhinacyadaasna adoo fiirinayo what is your master plan horta master plan-kay waxa weeye as nin maaragtay official in qof kasta oo Soomaaliya opportunity u helo inuu ka soo qayb galo process-ka dalka
marka waxa weeye even nimanka lagu sheegayo al-shabaab ama waxay doonaan ha noqdaan inta Soomaalida ah in haddii ay doonayaan anagu aan markasta diyaar u nahay in la soo fadhiisto miiska as long as ay hubka iska dhigayaan oo caadi uga soo qayb galayaan siyaasadda cidna u diidi mayso waxa leena waxa qof kasta oo Soomaaliya xaq buu leeyahay mustaqbalka dalkiisa inuu ka shaqeeyo ayisa ka taliyo taa waa soo dhaweynayna laakiin meeshii dawlad baa jirta marka dawladda nin kastaaba sidii qaanuunku sheegay inuu soo galo waxba laga ma qabo tan aad leedahay niman maartay al-shabaab ahna aqal qaa'ida mentality leh ayaaba meesha jooga su'aashu waxa weeye say ku yimaadeen yeel la joogan xageeba ka yimaadeen xagga dawladda ma aha marka waxa weeyaan nimanka dhinaca dawladda la dagaalamaya anu waxaan oran lahaa hal wada hadlo hal wada fadhiisto anagu taa mar kasta waa ogolnahay mid kale roo inaan ku weydiiyo planka ay hayseen maxay tahay waa askarna waxa lagu train gareynaa Kenya qaarna Ethiopia marka planka ay haysaan oo aad ugu talgashan inaad isku keentaan as a union hal meel lagu train gareeyo ma jiraan oo jira plankaas waana planka kaliya hadhow tolo shaqeynaya sida qaran ciidan qaran lagu helayo waa sidaas imika laakiin sida xataa saraakiishan ka wada hadalnay waxa weeye marka weligeedba Soomaaliya militarigeeda waa loo diri jiray dibadda in lagu soo tababaro laakiin waxa weeye su'aashu marka ay soo noqdaan sida loo qaban lahaa imika istaraatijigaas wuu bilaabmay xerooyinkii waan samaynaynaa dabeedna markay yimaadaan wala training wala siinayaa kii hore ka sii dheer wala isku dhafayaa waxayna noqonayaan marka ciidan qaran kuwa gobolada waa lagu qasayaa marka maartay istaraatijigaas wuu jiraa imika waana bilaabmay okay mid kale ku weydiinaa on Miss Nancy Pelosi markay inta joogtana aan weydiiyay waxay ahayd why is all hada soo sheegay Mr. Keenan wadankii way fiican tahay airportkii waa laga soo degtaa marka dhibaatada waxa mar walba waxa maqlay markii Soomaaliya loo socdo waxa la maraa wadamada u dhow sida Nairobi Ethiopia marka ma jiraan another plan or master plan aad socotaan oo Soomaaliya ay noqoto one after 20 years later we still are trying it looks like it's going crazy marka dhinacaasna wax yar ma ka taaban kartaa wallahi runtii saas sheegtay Soomaaliya mar way ahaan jirtay dal xoog leh sidii la sheegay markii hore Afrika oo dhan xagga military ugu haysata xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha laakiin burbur xun baa dhacay tiina waxay keentay daciifnimo in ma garanaysa dhowr kala baxo dhowr faction loo kala baxo isku soo celinteedii waxay u baahan tahay shaqo weyn iyada nafirkeedu waanu wadnaa istaraatijiga waxyaabay baka noo dhacay shirkadda dib u heshiishiinta wuxuu ahaa yani talaabo aad weyn bay ahayd inta la soo yimaado inkastoo gobolada meesha ku dhamayn laakiin intii timi in la wada fadhiisto oo road mapkii maaragtay laga wada qayb qaato oo ra'yi laga dhiibto marka waa talaabooyinka ugu horeeya in ay eventually ay Soomaaliya qarannimadeeda la soo noqoto oo marka dadka jaarka ana ula dhaqanto equal partners time-ka lama jooga wali laakiin talaabooyinkii way bilaabmeen marka maxaa inta kale rabo inaan ku weydiiyo mid waxa la dhahayaa wrap it up Soomaaliya abaaraha ka jiraan famine wadankan Mareykanka waxay bixisay lacag badan aad u badan state-ka Minnesota waxaan sameynaa lots of fundraising how the US Somali government aad u monitor gareynaysaan lacagtan iyo cuntadan waxaa ka soo socda waxa waa al-shabaab hortaagan ama dadkii ma helayaan cuntada marka seed u monitor gareysaan as Somali government waa su'aal aad iyo aad wanaagsan waa saan ku sheegay markii la helay xamar laga saaray al-shabaab nabad baa timi dabadna hay'adaha way soo bateen waxa bad mudam at some point hatta inaga tamateen laakiin annaka naftirkaygu maartay waanu ka shirnay gudiyaan u sameynay imika waxaan u sameynay hay'ad qaranba oo madax bannaan oo maareynta musiibooyinka la yiraahdo oo runtii imika ka mas'uulaba wixii dalka soo gala marka imika naftirkoodu waxay wadeen in maartay hay'adihii waxaan ka shaqeynayay isu geeyaan oo wax kasta ay kala soo mariyo campska imika ugu weyn muqdisho waxa weeyaan badbaado iyo waxa wada hay'adaas ka gacanta ku haysa istaraatiijiguna waxa weey in campska kala dhan ay saa wala wareegto maamulkeeda waxaanu xataa u sameynay ciidan ilaa 300 oo dhawaan noqonay 600 oo wax kala qabanin oo military iyo police iyo nabad sugid ku jira ah oo security camps kale ka shaqeeya oo mobile ah oo meesha wax ka dhacantay kara marka aad u maartay waxaad moodaa imaka in aad iyo aad la soo qabsanayna naftirkayga anaku marka aad bay soo xagga amnigu hagaagayay accountability-ga maartay cuntada la keenay meesha marayso meesha la gelinayo cidda helaysa waxaas oo dhan waan sameynaa hadda marka Xuseen Carab Mr. Carab Ciise waxaan farxiishow aan ku sheegaa inuu aabaha jiran yahay waan ogahay waxaan Ilaahay aga baryaynaa inuu aniga farxiyo ahaan inuu Ilaahay caafimaad degdeg siiyo adigana waa daalan tahay saan ognahay marka safarna ku socotaa marka I pray aaba inuu fiicnaado oo Ilaahay caafimaad siiyo amiin waana ku mahadsantahay farxiishow aad siisay interview-gan Universal TV
aad iyo aad mahadsan tahay ducadaadan ilaahay naga aqbalo Soomaaliya dhanna waxaan weydiisanayaa inay odayga u soo duceeyaan runtii waxa weeyaan oday weligiiba Soomaaliyada aaminsana annagana saan ugu soo koriyay marka insha Allah ducadiinana ilaahay wada ka aqbali doona waa mahadsan tahay bye bye Absalan, bro,
Thank you.